waxaan rabnaa wadanka iyagaa xukuma, iyagaa waalida, iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan oy wadankan hagaan baa laga rabaa. annagu khilaaf ma wadno, xumaatadooda kama shaqaynayno, wanaag baan rabnaa, hoggaamintoodaan rabnaa, waqtigooda inay dhammaystaan baan rabnaa, kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin waliba ku yimaadaan rabnaayo aan ilaalino oo midaaha ka shaqeeya oo madaxda dowladda federaalka dowlado kale iyo cid baa faragelisa iyo wax walba haddii inagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheegno oo waxyaalo kale isku tuutuuno oo dowlada la isku tuumo waxaasoo dhan way imanaysaa. maxaa lagu sixi karaa wixii xumaada maanta waxaa iskale mas-uuliyadda madaxda dowladda federaalka soomaaliya, sababtoo iyagaa waalida, iyagaa mansilatu ab taagan, iyagaa laga rabaa wixii khalada inay sixitaankiisa ka shaqeeyaan oo ay dariiq sax oo la isugu yimaado ay keenaan. waxaa laga yaabaa oo rabaa inaan meesha ka saarno madax badan baa caawa halkan fadhida, gobolka banaadir iyo muqdisho iyo wax badan baa laga hadlaya. sometimes waa la suura qabiileynaya, dareen kalaa la bixinaya. maanta xamar qabiil kama jiro, dagaal qabiille kama jiro. waan garanaynaa xamar dhibaataday soo martay 91 maanta anigu xamar qofna marti ugamay, qofna ma barya, qofna marti ugamay, qof marti una maaha, ma jiro. siyaasadda la isugu hayaay waa siyaasad iyo kuraas yaan suuro qabiil loo yeelin oo qofkii hadlayaano tiin bare qabiil qaadanini ha qaato siyaasadda iyo damaca ku jira iyo wuxuu ka hadlayaa ina midaas tahay. waxay la tahay taasaa ina kaga filan dadkeennii joogna inaan maanta masale qabiil ayna meesha jiro. sidaa daraaddeed xildhibaanada labada aqal, mas-uuliyiinta kale, madaxda kale, kulligood waxaan leenahay war aan ka wada shaqayno waddankan xal sidaan uga gaari lahay. aan ka wada shaqayno inaynaan xusuusanin wixii dhibe baraaraha iyo wanaagga inoo muuqda iyo xulumka aan ku riyoonayna aan gaadhno. aan ka kaaftoonno gacan bini-aadamno. maanta waxaa laga hadlayaa 14 Oktoobar oo 600 iyo intaasoo qof ay ku dhimatay. ilaahay baan idinku dhaariyay wiilal yaryar baa intaasoo dhibaato a geystay. inaan intaan istaagno maalin walba foorarsanno oon idhaaha loo duceeyo oo kana hala sameeyo oo aynaan waxba ka qabanaynin oo aan rabno amisom inayna waardiyeyso oo aynaan waxba dhisanaynin oo inaan iska celinayn maalinba maclacal baan ku jirayno iyo hala aamuso iyo sidaan hala yeelo. dadkaan yuu sugayaa yaa mas-uulka ah. inta aan wada qaraabanaynan xoolo wada raadsanaynan si kale loo wareegayo waxay la tahay inaan ka shaqayno dalkeenna iyo dadkeenna inaan cadowgana ka xorayno, sharaftii aan shalay lahayna aan soo celino. haddii kale inaan istuhunno iyo inaan meelo isku riixriixno intuba meesha imanaysaa, wax saxana ma noqonayso. dastuurka in la ilaaliyo waa shay waajiba. waxaan waa wax bulshadu ay ku heshiisay. haddaan isaga la ilaalinin oo isaga una ina kala hogaaminin oo isaga aynaan ku dhaqmin dee sina uma kala adkaanayno, ninna nin kama adkaanayo. kaasaan ku kala adagno, isaga aan ku kala dambayno, isaga aan isku maqalno. waxaan diyaar u nahay xaqa aniga uu isiinayo dastuurku inaan qaato, xaqa dowladda federaalka ay leedahayna inaan siiyo. dowlad goboleedyada nin wax sheeganaya nin maanta joogiga ku kaloo la geeyay nin waliba maanta calaacalkiisa uu qabaa, xuquuqdii u lahaana ma helo. maanta dhaqaalo badan baa waddanka soo gala, deeqaa la bixiyaa, waan soo dhaweynaynaa dee in la cafiyo wax walba in la sameeyo, laakiin de xaggey gaadhaan ma hayno. maa shahidnaa maalika ali waali wax ka baxay hataa war looma haya laga hadlaya. waxaan rabaa qof kasta oo xal soomaaliyeed hayo keenayo ka shaqaynaya diyaar baanu inaan garab istaagno. gabadh baa galmudug ka hadlaysay, reer galmudug iyagaa isa sixi kara. khaladka galmudug ka jira anu uma taagi, cid kale uma tiirinayo. reer galmudug ha isa saxeen iyagu, xaqa dastuurka uu siinayana ha qaateen. dowladda dhexe waxay leedahay ha u daayeen, iyaguna tooda ha ka shaqeeyeen. laakiin iyagu intay isqasqasaan waxaweyaana dadka ku reexan, ha isa saxeen iyagu oo waxa dhexdooda ku jira ha xalliyeen oo wanaag ha ka wada shaqeeyeen. waxay la tahay aan middaas ka shaqayn. haddaan jubbaland nahay siduu fartaag ka hadlayay shalayna dib u heshisiin baanahay, waxaan diyaar u nahay ta gudaha iyaga ah iyo ta dibadda ah iyo midda dowladda federaalka iyo qof kastoo wax naga sheeganaya
si kastoon uga garbixi karo inaan diyaar baan inaan qabsoono say doontaa u adkaato waxaan diyaar unahay inaan nabad ka shaqeyno oo qabsoono laakiin waxa aan ku kala bixi karaa ha noqoto sharci inuu hogaamiyo saaxiibaday cunaqabatayntu diyaarado iyo hawo iyo ceriya dhul la xidhayo weli way iska taagtaagan tahay siciid waan uga mahad celinayaa safarka uu soo galay iyo meesha dheer sheekh shariif saaxiibkeena waan ugu sii mahad celinayaayo baraaruga badan isagaa keenayba isagoo istanbul ka soo duulayba transit waan kusoo gudbaya celintii la celiyey waxay keentay isaga laftiisa dareen aan ku jirin baa galay war maxaa lagu celinayaa ninkii shalay garoonka furay baad ahayd waan uga mahad celinaya kulligood inta timid oo dhanna nin walba mahaddiisa meeshiisa ha ka qaato haddii jubbaland intiinaasi mas-uuliyad baa idin saaran madaxweyne siciid baa jooga hadda systemka ku jira senatarkaa jooga abshir dowladda federaalka iyo cidda wax naga tabanaysa iyo kuwa annaga gudaha ku jira intaba waxaan diyaar u ah inaan wax kasta oo garbaxa oo dawbaxa oo sharci ku dhaqana oo wadahadala oo badbaado ah oo xal ah inaan gaadhnaan diyaar aho laygu mateli karo qof waliba laygu mateli karaa wixii xal iska daaya kuwa ila jooga ee hadda magaalada jooga ee wax tabanaya qof kastoo intiinaa ka mida mas-uul buu iga yahay wakiil buu iga noqonaya inuu xal ka keeno warcad sow maaha yaan la isxamanin masma qaninin iyo bilqaloc baa qaniinay maaha aad baad u mahadsantihiin magaaladiinni baad joogtaan kaafiyaad joogtaan nala sii jooga aan wada joogno annaga culays idinkuma qabno haddii la tegayana si nabada ku taga